magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland waxa aad looga dareemayaa soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminayo oo ka iman doona dalka Mareykanka. Halkani waa faras magaalaha caasimada Hargeysa, waxa isugu soo baxay shacab aad u tiro badan kuwaas oo sita calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sameecado waaweyn oo ay ka baxayaan heeso wadaniyadu ku dheehan tahay. Shacabkan ayaa waxay wataan gaadiid kala duwan, waxay sidoo kale marayeen wadooyinka waaweyn ee caasimada Hargeysa, waxay ku dhawaaqayeen ereyo kala duwan oo ay ku siday diyaarka ugu yihiin inay soo dhaweeyaan madaxweynahooda Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. dareenka isku soo baxa ay sameynayeen shacabkan ku dhaqan caasimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. intaasi kadib shacabkan ku nool caasimada Hargeysa waxa ay wajiyadooda laga dareemayay dareen farxadeed. wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminayo ayaa la filayaa inay maalinta bariya soo caga dhigtaan caasimada Hargeysa. waxa guud ahaanba ka socda caasimada Soomaaliland ee Hargeysa abaabul iyo isku soo bax ballaaran oo lagu soo dhaweynayo wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland hogaaminayo. wafdiga madaxweynaha Soomaaliland ayaa intii ay ku sugnaayeen dalka Mareykanka waxay kulamo kala duwan la yeesheen madax kala duwan oo ka tirsan dawladda dalka Mareykanka iyo jaaliyadda Soomaaliland ee dalkaasi Mareykanka. وخضر محمد محمود خضر قولة تلفزيون كقرن كسوماليلاند مقالة هرقيسة.